dyslexia waxay ku dhacdaa had iyo jeer ilmaha yaryar, waxaana la arkaa marka iskoolka loo bilaabo gaar ahaan primary marka ay ku jiraan ilaa iyo intermediate dugsiga dhexe in duruusta ama waxbarashada uu culays ay ku tahay. marka uu macalinku u yeeriyo ama marka uu macalinku ugu soo celceliyo xarfo qoran in la weydiiyo ay noqoto cunuga inay aada ugu adkaanayso inuu hoos u aqrinayo inuusan wada aqrin karin. sidoo kale marka dabcan wax loo aqriyo inuusan ku soo celin karin dhanka iyo akhriskaas. marka hore intaanan barnaamijka gudagelin saaxiibayaal waxaan idinka codsanaa inaad kanaalkayga subscribe ka saartaan. sidoo kale haddaad igala socotid dhanka iyo facebooka waxaan kaa codsanaya inaad like iyo followga aadan naga hilmaamin. aada iyo aada ayaan kaga mahad celinaa dhammaan inta igu cusub iyo inta hore ila socotid. arrintan haddaad ku aragtid ilmahaaga waxaa lagaa rabaa inaad si gaar ah oo taxadar badan ku jiro inaad u ogaatid. haddii jeer ilmaha isku wada mid ma ahan, qaarkooda ayaa waxaa lagu arkaa duruusta inay aada ugu culus tahay, dhanka iyo waxbarashada inay tahay mid aada iyo aada ugu culus. marka cashar loo soo dhigo ama cashar loo soo meeriyo in muddo ahna loo meeriyo loo aqriyo, marka lagu imtixaamo ama dabcan la rabo inay aqriyaan inay ku tahay mid aada u culus aysan aqrin karin. 3 marxaladood ayaa loo dabcan ee saameysaa dhanka iyo akhriska, qoraalka iyo isbeelinka ama higaada. badanaa marka waxay soo muuqataa dyslexia da-da iskoolka ilmaha markii lagu soo qoro. waxay noqonaysaa in ilmaha had iyo jeer ay ku adkaanayso duruusta iskoolka laga qaato ama macalinka waxa uu u meeriyo. haddii cunuga maanta oo dhan uu macalinku u meerinayo uu ku soo celiyo dabcan uu dhaho akhri adigana inay aada ugu cuslaanayso cunugaas inuusan aqrin karin ama si qalad oo kala duwan uu aqrinayo. arrintan marxaladan dyslexia cunuga waxay ku keenaysaa walwal iyo walbahaar iyo niyadjab. dabcan xanuunkan dyslexia ama calaamadan maahan calaamad si guuda cunuga jirkiisa caafimaadka u wada saameyneysa, keeni karta caafimaad daro. dabcan jirkiisa marka loo fiiriyo maqalkiisa, dareenkiisa waa mid aada iyo aada u fiican, wax cilada ah ma qabo, caafimaad daro balaarana kama muuqato. dabcan arintan waxay keliya ee saameysaa dhanka ee maskaxda, gaar ahaan qeybta marka uu isku dayayo qofka inuu wax aqriyo ama inay noqoto inuu wax ku soo celiyo wixii la weydiiyey qoraal ahaan ama hingaad ahaan. broseskaas dhanka maskaxda ka imaanaya, qaabka uu luqadaha qofku isugu xirayo ama qaabka uu cilmigu isugu xirayo inay aada u adag tahay, waxaa lagu sheegaa inay tahay wax loo yaqaano dyslexia. caruurta ama ilmaha lagu arko calaamadan dyslexia haddii jeer ilmaha kale dabeecad ahaan iyo dhaqan ahaan kama duuna, inay ugu fiican yihiin dhanka isdhexgalka, wada sheekeysiga, isla xiriiritaanka iyo ilmaha marka isku imaadaan dabcan inuu yahay qof aada u faraxsan, qof aana dabcan xanaaqsaneyn, balse ee keliya oo ciladu ay ka haysato dhanka iyo maskaxda, qeybta qoraal aqrinta iyo kusoo celinta. marka uu qoraal qofka aqriyo in si saxa ugu soo celiyo. caruurta lagu arko calaamada dyslexia waxay u kala baxaan 2 qeybood. primary dyslexia oo ah midda ugu badan ee had iyo jeer lagu arko ilmaha, waxaa lagu sheegaa 5 cunug mid ka mid ah in marxaladan uu qabo. sidoo kale dyslexia waxay ku dhici kartaa caruurta kale, gaar ahaan marka aysan qabin marka hore calaamadaha hadda aan kasoo hadalnay. waxaana dabcan ay ku imaan kartaa arrintaas wax loo yaqaano trauma secondary dyslexia. labadaas qeybood ayay noqon kartaa calaamada loo yaqaano dyslexia. in qofka marka hore uu qabo genetic defectina ay ku timid ama DNA-ga dhanka iyo maskaxda qeybaha process language-ka qaabilsan in culays badan uu ka jiro, qofkan uu waxba xifdi karin ama qoraal badan uusan sameyni karin ama uusan ku soo celin karin. sidoo kale midda labaad oo secondary dyslexia ayada waxay ku imaan kartaa marka uu qofka uu dhaawac uu gaaro ama shil uu gaaro
taasoo dhanka iyo maskaxda dhaawacaas saameyn ku noqon karo marka ay noqoto dhanka iyo waxbarashada iyo in qofka uu qoraal badan akhris u bedelo ama hingaad badan uu sameeyo. waxaana lagu sheegaa sida hore aan idin soo sheegnay 5 cunug isla dhalatay ama 5 cunug oo walaalo ah in hal kamid ah lagu arko dyslexia. waalidka marka hore kuma baraarugsana in marxaladahan ay imaan karaan, gaar ahaan waxa loo yaqaano dyslexia. cunuga ay dhaleen marka uu dhiganayo primary and intermediate iskoolada hoose iyo iskoolada dhexe, hadii jeer waxaa cadaadis lagu saaraa inuu qoraal badan uu akhriyo, hingaad badan sameeyo, wuxuu inuu soo qaado guriga uu haddana uu kaga shaqeeyo, taasoo cunugu mar walba ay ku tahay mid aad iyo aad u culus. sidoo kale waalidka juhdiga uu bixinayo waxaa dabcan hadii jeer uu haystaa cunugan inuu yahay mid maskaxdiisu dabcan caadi ay tahay balse uu baran karo, laakiin cilada ay ka jirto dhanka iyo qoraalka marka ay tahay in akhris loo bedelo iyo inuu qofka hingaadiyo. arintan marka hadii jeer ilmaha marka lagu arko waxay u baahan tahay taxadar badan in la muujiyo. dhanka iskoolka marka imaano, macallimiinta iskoolka ama systemka waxbarashada dabcan uma arkaan in marxaladan ay ka jirto dhanka iyo neerfaha ama maskaxda. cunugii waxaa la sameeyaa in cadaadis badan la saaro, inuu cunuga akhris badan uu sameeyo, lagu imtixaamo, taasoo cunuga uu sii arki karo in ay arintaas ay ku keenayso walwal iyo niyad jab badan. dyslexia caruurta lagu arko hadii jeer way ka firfircoon yihiin caruurta kale. waa ilmo smart ah ama isdhexgalkoodu aad u fiican yahay, hadii jeer marka ay wax maqlaan inay u bedelaan ficil ahaan ama shaqo ahaan inay rabaan. dabcan marka la adeegsado inuu aad u orientationkiisu u fiican yahay ama foojignaantiisa inuu isku dayayo inuu wixii kuu soo qabto. sidoo kale marka ay timaado in wada sheekeysi ay isdhexgal dhanka iyo caruurta inuu yahay qofka ugu horeeyo oo bulshada aad u soo jiidan kara ama caruurta qeybaheeda kala duwan inuu yahay qof sheeko badan. laakiin ciladu waxay ka jirtaa dhanka iyo maskaxda, gaar ahaan marka ay noqoto habka uu wax u baranayo. culays badan markuu ka saaraya in qoraal ahaan inuu akhriska u bedelo, inuu wax xifdin karo. calaamadda waxay si saa'id u soo muuqanaysaa marka ay noqoto inuu secondary u gudbo. dugsiga sare markay u bilaabato duruustiisa ayaa hadii jeer culays badan cunuga la kulmaa. dabcan waxaa lagu arkaa inuusan waxbarashadii wadi karin, iskoolkina uu gambinayo. maamulkii, macallimiinta iskoolka, waalidkii bareshar badanna ay saari karaan cunugii, taasina ay ku tahay niyad jab inuu waxbarashada uu sii wado. arintan dyslexia 35% ilmaha markay waxbarashada ka haraan inay sameeyaan waxyaabaha tuuganimada, gaangiska, daroogada iyo in dadka ay dhacaan. cilmi baaris badan marka la sameeyey, dyslexia waxaa la ogaaday dadka magaca weyn dunida ka sameeyey, gaar ahaan dhanka iyo businesska ama ganacsiga, dhanka iyo teknolojiyada ama horumarka teknolojiyada, sidoo kale dhanka iyo farsamooyinka guud, inay noqdeen dad markoodii hore ama caruur markoodii hore qabeen dyslexia. dyslexia marka lagu arko in waxbarashada cunuga uu diidayo iyo in waxbarashadii culays ay ku tahay in si gaara loogu taxadaro. waxyaabaha ugu habboon ee lagu maareyni karo ama in loogu hortago ay tahay dyslexia ama cunuga inaysan aad u sii saameynin waxaa ka mid ah marka la dareemo dhanka iyo waxbarashada culays badan uu kala kulmayo, in akhriskii uu ku culus yahay, hingaadii ku culus tahay, waxba uusan kusoo celin karin, ama in dabcan casharadii si toosa uu u qaadan karin. dabcan waxaa muhiima in laga taageero dhanka iyo language skillska, habka uu luqada ama cilmiga uu baranayo, in dabcan laga taageero, in farsamo ahaan iyo gacan ahaan loo tuso qaabka uu u dhawaaqayo. sidoo kale in marka uu wax akhrinayo dareen ahaan in wejigiisa lala socdo. sidoo kale dhanka iyo waxbarashada ama gaar ahaan xisaabaadka marka uu ka shaqeynayo in laga caawiyo qaab ahaan iyo siduu isugu dardarayo inaan lagu imtixaamin ama aan culays badan lagu saarin. sababtoo ah waxaa jiro ciladan inay tahay cilad si gaara maskaxdiisa ka timid, taasoo awood badanna aan u lahayn in si toos ah oo fudud inuu wax u qabto ama ugu shaqeeyo exercise-ka. sidoo kale marka ay noqoto inuu wax hingaadiyo, in faraha loogu tilmaamo ama in afka xataa loogu fududeeyo ayaa muhiim.
dyslexia had iyo jeer waxay saameysaa sida hore aan kugu soo sheegnay 5 cunug kamid ah in hal cunug lagu arko. haddaan marka hore laga taxadarin ilmahaas waxay noqon karaan ilmo gaangis ah marka ay weynaadaan dadka dhaco ama dilo waxbarashadina aan wadi karin. sidoo kale cunugaas marka uu waxbarashada ku jiro waxaa muhiim ah in si gaar ah loo tuso dhanka iyo farsamooyinka. technical schools in lagu xiro iskuulada lagu barto farsamada gacanta qeybaheeda kala duwan, taasina waxay ka qeyb qaadanaysaa in dhanka iyo waxbarashada marka ay noqoto farsamada inay aada u fududeyso dhanka iyo maskaxdiisa. in qofka la tusiyo in cunuga lagu sii deeyo iskoolada farsamada waxay u fududeynaysaa meesha sida gaarka ah uu jecel yahay inuu door bido in qaab ahaan waxbarashadii duruusteeda ay noqoto mid aada ugu sii fudud. anigoo ah Dr. Maxamed Liibaan Maxamed, aad iyo aad idinkaga mahad celinaa dhageysiga la socodka video clipska aan soo geliyo. waxaan idin leeyahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.